Haddaba maxaad ka ogtahay maxaadse kala socota cidda ka dambeysa qaraxyada iyo dilalka iyo weerarada guracan ee ka dhacaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya? Sidee ayay Al-Shabaab ugu fududaatay inay kusii balaartaan magaalada Muqdisho iyo weerarada ay ka geysanayaan hoteelada iyo goobaha kale ee muhiimka ah? Qodobkaas ayaan warbixin idinkaga hayaa. Si degan u dhageysa warbixintan. Inta aan guda galin barnaamijka waxaan daabada kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto, sidoo kale gambaleelka aad furto si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo halkan kusoo gudbino. Hana ka ilaabin muuqaalka inaad like saarto. Aynu ku bilownaa waxaa soo baxay warar sheegaya in taliyaha Nisa Mahad Salaad uu gabi ahaanba dalka ka fuliyo dhibaatooyinka ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaa horaantii bishii Agoosto magaalada Muqdisho ka dhacay weerar bahalnimo ah oo ay Al-Shabaab ka geysteen Hotel Xayaat, kaasi oo geystay khasaaro naf iyo mid hantiyadeedba. Waxay ciidamada xoogga dalka ku qaadatay weerarkaasi inay soo afjaraan ku dhawaad muddo 30 saacadood ah. Ha yeeshee ilaa iyo hadda lama sheegin dhaawac iyo dhimasho ama nolol lagu qabtay weeraryahanadii galay Hotel Xayaat markii uu saacado socday dagaalka. Waxaa goobta tagay Mahad Salaad oo ah taliyaha Nisa, ciidankana ku amray inay ka soo baxaan hotelka isla markaana ay joojiyaan hubka lagu garaacayo hotelka, kaasi oo lagu gol lahaa in laga saaro ama lagu dhibaateeyo dadkii weerarka ka geysanayay hotelka iyo ku jiray gudaha Hotel Xayaat. Taasi oo sababtay in qoladii ku jirtay hotelka ay sameeyaan si diyaar garow iyo inay qaarkood ka baxaan hotelka. Waana sababta ugu horeysay ee Mahad Salaad uu ku leeyahay eedda koowaad ee ahayd inay Al-Shabaab ku sii balaartaan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Midda xigta ayaa ah in la cadeeyo inuu Mahad Salaad ku lug lahaa hoobiya lagu soo tuuray xaafad ka tirsan Muqdisho, kuwaasi oo waxyeelo ay ka soo gaartay dad shacab oo masaakiin ahaa. balse shakigaasi oo dhan waxaa rumeeyay warqad uu soo saaray mid ka mid ah sirdooniyaasha Mareykanka oo gacanta ku hayay xogta Mahad Salaad oo lagu magacaabo Joseph. Wuxuuna ku cadeeyay warqadda uu soo saaray in Mahad Salaad uu yahay nin argagixiso ah, kaasi oo ogsoon dhammaan falalka argagixiso ee ka dhacaya dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, maxay tahay sababta uu Xasan Sheekh Maxamuud u doortay Mahad Salaad oo ah nin Al-Shabaab muddo 12 sano ka tirsanaa ilaa ay haddana la shaqeeya? Dowladda si xal ma ka gaari doontaa xaaladda amni darre ee ka jirta dalka Soomaaliya iyadoo uu Mahad Salaad xilka taliyaha Nisa ka yahay Soomaaliya? Maxaase la gudboon Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka Soomaaliya ee haatan talada dalka haya? Barnaamijyadeena dambe ayaad ku daawan doontaan. Si uusan kuu dhaafin barnaamijkeena, fadlan subscribe saara channelka, sidoo kale gambaleelka furo si uu kuugu soo dhaco muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Like garay una sii share garay saaxiibadaada. Ha ilaabin inaad muuqaalka like dhahdo. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. Mahadsanid.